rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay marka qofku dhinto waalidkii waa dunyada uu ka tago darajo ilaahay siiya ilaahay siiya darajo alla siinaya darajada qabriga waalidka ku jira oo dhintay oo jirkiisii dhulka ku jiro ba darajo ilaahay siinaya markaasa waxaa hadlaya waalidkii ilaahay buu la hadlaya wuxuu oranayaa ilaahayow maxaan ku mutay inaan darajadan helo darajada inaan helo meeshii uu ku jiray qabriga iyo xabaasha baa kor looga soo qaadaya darajo sare la siinaya markaasaa wuxuu oranayaa rabbiyow maxaan ku mutaystay darajadan sare ee la isiinayo maxaan ku mutaystay biistighfaari waladika lak ilmahaagii baa dembi dhaaf ii kaa weydiiyey iyagoo adduunka jooga bay yidhaahdeen rabbiyo waalidkay u dembi dhaaf markay caynkaa yidhaahdeen waan aqbalay ducadoodii waa anigaa korkuu soo qaaday waalidku xaqiisu waa cadiim rasuulku wuxuu yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh man axaba an yasila abaahu fii qabrihi qofka jecel waalidkii inuu xidhiidhiyo isagoo qabriga ku jira oo dhintay oo ka horeeyey qofka jecel inuu xidhiidhiyo waalidkii falyasil ikhwatu abiihi min bacdi aabihii walaaladii ha xidhiidhiyo isaga dabadii adeer baa jooga eedaa joogta inaabti baa jooga habar wadaag baa jooga waalidkaa la wadaagan dhalashada iyo walaalnimada dhaqaalee buu nabigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dhaqaalee ilaahay khayr buu kaa siinaya cabdullaahi bni cumar isagoo tawaafaya kacbada oo la cumraysanayo ayaa nin reer yamaneed ah ayaa ka mida dadka tawaafaya kacbada dabeetana hooyadii buu xambaarsan yahay markaasuu geeraarayaa anigu waxaan u ahay hooyaday awr layliya oo tababaran oo laylisan baan u ahay haddii awrtu qaarkood ay didaan hooyaday anigu la didi maayo dhabarkan ku sidaa waan cumraynayaa saasuu leeyahy dawaafinaya cabdullaahi bni cumar oo isna tawaafaya kacbadii bay isku soo beegmeen ya bna cumar aturaanii jazaytuhaa ina cumarow ma kula tahay inaan hooyaday u abaalguday haddaan iyadoo cumriga adhaxda ku sidoo maanta tawaafinayo saasuu u eegay cabdullaahi bni cumar laa wallaahi may ilaahay baan ku dhaartay inaadan u abaalgudin hal nabara oo qabtay markay foolanaysa xitaa hal nabara oo qabtay fooshi xataa ma aadan gudin buu yidhi wax kale iska daa waa nabar keliya qabtay xambaarkii iyo sidkii caloosha iyo umushii iyo waxaa daa warkeeda korintii iyo dhaqaalayntii hal nabar oo qabtay markay foolanaysay ma aadan gudin buu yidhi ma sahlana waalidku waa cadiim